ogtahay shalay waxaad samaysay adaan ogahay shalay wixii kuu dhacay inayna sahal ahayn u soo bandhiga dadka oo tusa oo xaaladda dhabta ah iyo se wax u dhaceen iyo se wax ahayeen dadka tusa u sheega lama sheegaya dee بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالك قيمها إيو قدرين تبضن ميل كستي أود جوتين وحانيو سلام يعني كستي بمك عيسى إيا منصب كيس انت كتب محربة هل كلمة دين على هذا قلت كل فيديو حاجة الشلي ka hadlay arrinkii ka dhacay degmada Saylac gaar ahaan tuulada Indhabiraale xasuuqii halka ay ka geysatay Somaliland ay ugu geysatay dadkii deegaanka ahaa ee barta deganaa ragaas horta Allah u naxariisto qabrigana Allah u waasiciyo gacanka xaq daran ayaa xasuuqday waxaana lagu xasuuqay magac dowladeed waxaa lagu xasuuqay tikniko gaadhiyo ayaa lagu xasuuqay habase ahaatee dadkaasna waxaa loo xasuuqay waxaa loo aanaynayay waxaa loo eriyanayay toddobaadadii ugu dambeysay ma toddobaadkii haddaan na soo dhaafay alaabtii ka socotay miidiyaha ee ahayd propagandada markii laga arkay caleemasaarkii looscaanood dowlad goboleedka waqooyi bari xarunteedu ay tahay looscaanood caleemasaarkii wixii ka dambeeyey dagaal qaawan ayay idaacadaha Somaliland ay soo qaadeen oo ay ku soo qaadeen hadday tahay xukuumadda Djibouti si gaara madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Xamar Gele iyo waddanka waxay doonaan ay sheegeen ana wixii caloosha ku jiray oo dibadda u soo saareen ha u soo saaraan wax marka la sheegayna wax run ayaa fiican qofka waa isqabta siyaasad isku qabta ma si kala ba isku qabta ma dhul isku qabta ma wax kas cadaawad kala baxay naga dhaxayso in wax jira laga hadlo oo wax jira la sheego umada loo soo bandhigo wax aad u qurux badan adiga sumcadaada ku jirta iminka aniga ka cali ahaan wax aanan jirin haddaan xaggan la soo fadhiisto oo idhaahdo waxa idhaahdo waa farxumo weyn aniga shakhsiyadeyda iyo jiritaankayga iyo dadnimadeyda iyo liidaysa hoos u dhigaysa waxa jirta idaacado aan anigu shakhsiyan aan dhageysto oo aan daawanayo oo ay ka mid tahay TV laakiin maalintii dhaweyd وأنا قادي وياه أدبل مو قادي وياه لكن وانين دتكيس لا درينا وانين دتكيس لا درينا وياه لكن دتكاga dareen la noqo ani dadkayga dareen waa la lahay wala mid baan ahay oo waxay doonayaan baan doonayaa oo taa lagu dhawaaqay goban state ka baan taageersanahay hahay inuu isaguna tiisaas uu ku qanacsanaado wax diiday ma leh laakiin wax jira ورون إن عندك كل هور إمادة ويان ماشيو اللي هو مرنابة من ربي إن وطن كي وحلاقة شيء إن دات كي وحلاقة شيء وح أين جين ولبه سيدو كله أدوك نسلا كله لكن أنا ودك حكم الشيء معاين ما أفلك هامين سياسة بالي سوق قفتي نبح هوشي سوق قفصلي سما هاي الكاسمان هذا عايشين إن عمر هذيتها الشيخ هذيتها سلطان هذيتها محل راداي سياسي شعب لو وضع عايو لأنك أمة شالي وطن كان يسوي هركيسي يسقى يسوي وبورم يسقى يسوي هذا الأمن سنتي هذا الأمن سنين ورد يسوي سقى قربسي وارون ولا لها قرب يكويهين قاشاب يكويهين لكن waxay noqotay in isagii laga balaariyo wax uuna geyin umada uu ka geyin
geyiga uu ka geyin geeska uu ka geyin intaba la sheego dad kale oo inaan inii raacno oon eryano maskaxda biyo ku jira muusi waxay u haystaan in dagaal la galo oo dhinaca mar lala dagaalamo oo dantooda ku gaaraan oo waddanka la baabi'iyo oo babababa in canfar iyo ciisi iyo la isku dhufto oo waddanku uu noqdo maxaa la yidhaha dadka ma waxay moodayaan majuhalaa bay moodayaan dadku inay aqli lahayn bay moodayaan marka horta xaqiiqatan waa la isbartay laakiin hadda waxaa qormaysa taariikhda 60 sano ee soo socota sideedaba reer uma dowladeyn karo taasi way soo dhammaatay taasi 34 sano ayaan dowladda anagu dhisay madaxa ku haysan oo taageerayna oo meel kasti oo ay Soomaali joogto joogtaa Guinea Soomaaliya haddii marka laga soo bilaabo dowladda gacanka Siyaad Barre Allah u naxariisto dagaalkii wixii ka dambeeyay SNMT raggan maanta la laayay ciyaalka la laayay shalay la laayay ciyaalkii aabayaashood SNMT ay ku dhinteen weyn ee gobolka Salal ku dhashay Toqoshi Saylac Looyi Cadde dadka intaa ku dhashay weyn laakiin waxaa tustay dadkii u soo halgamay dadkii soo dhisay dadkii maalkooga iyo muruqooga geliyay dadkii dhaqaalahooga geliyay hadday tahay shacabka iyo hadday tahay dowladaba dadkoogii maanta inaad tigniikaad ku qaraacid ta kalena ku darso dadkuna inay ogaadaan waa muhiim weeyaan gaariyadan waa weyn ciidanka lagu guro kuwan kale ee maxaa la yiraahdaa tiknikadu ay saaran tahay waad garanaysaa xaggee ka yimaadeen laakiin walaalku ma ahan sida ininku aad u haysatiin walaalka inuu yahay gaf baa ka dhacay foolxumaa ka dhacday waxaa ka dhacday wax aan noloshiina xukuumadda Somaliland weligeed aan ka hadhi doonin waxaa ka dhacday oo ay samaysay wax aan 60 sano may 100 sano may taariikhda soo socoto oo dhan aan iloobi doonin sida ay ninku aanad u iloobin dagaalkii kala wareegii dowladdii burburkii Siyaad Barre iyo soo kicitaankii SNM ama bilowgii land saanad u iloobin oo meel kasta aad uga sheegtiin iyo anaguna ugu eedaami doonaa iyo anaguna aanu iloobi doonin dadkayga la xasuuqdeen oo ku xasuuqdeen shaar dowladeed habas ahaato ma calaacalayno ma ooyino ma barooranayno Allah naxariiso dhibilahay kulba laakiin wixii la wada lahaa iyo shalay sidii wax ahaayeen maanta noqon maaya anaguna gubanteeda baan eryanayna meel kastina waa la tagaynaa nin kastiba intiisa iyo reerkiisa xidho maxaa isku jira walaaltinimada iyo wada jirka iyo wada qabsiga iyo wada noolaanshaha haddaad diideen cidda lagu qasbaysa maxay tahay ma jirto cid lagu qasbi karta ma jirto cid haysan kartana ma jirto laakiin waa ogtahay shalay waxaad samaysay adiguna waad ogtahay ana waxaan ogahay shalay wixii kugu dhacay inayna sahal ahayn u soo bandhiga dadka oo tusa oo xaaladda dhabta ah iyo se wax u dhaceen iyo se wax ahaayeen dadka tusa u sheega lama sheegayo lama sheegayo khayr baan idin rajaynayaa Guban State of Somalia أنا ولاتو خيري وناك قولي قبنيمو أدبان النبي صلى الله عليه وسلم